bankiga caalamiga ah ee Sombank ayaa xalay magaalada Qardho ka daahfuray xarun cusub oo yeelan doono taasoo noqon doonta xarunta toddobaad ee bankigu ka hirgeliyo deegaanada Puntland. waxaa munaasabada daahfurka ka qayb galay madax ka socotay gobolka Karkar ee dowladda Puntland, ganacsato, madaxda bangiyada, culimaa udiin, haween iyo marti sharaf kale. Cabdixaafid Faarax oo ah maamulaha xarunta Qardho ayaa xafladda daahfuray ugana mahadceliyay martidii ka soo qayb gashay xafladda daahfurka xarunta Sombank ee magaalada Qardho. mudan ayaa ujeedada ugu weyn maanta u joogno waxa weeye furitaanka Sombank xaruntiisa magaalada Qardho. xarumo badan buu ku leeyahay Sombank xarumo badan ayuu ku leeyahay Soomaaliya. xaruntiisa dhaxana waxa weeye waa Muqdisho waaye. marka maanta waxa u joognaa inaan furitaanka sameeyno xarunteena Qardho oo noqonaysa xarumo badan uu ku leeyahay sida Goldogob, Garowe, Boosaaso iyo Gaalkacyo. Qardho maanta nasiib u yeelatay in Sombank laga maareeyaha guud ee Sombank Mr. Cabdullaahi Aadan Cumar ayaa tilmaamay in adeegyada bankiga ay u soo kordhiyeen ay ka faa'iideysan doonaan dhammaan macaamiisha Qardho, kana codsaday in laga faa'iideysto fursadaha iyo adeegyada uu u hayo bankiga bulshada ku dhaqan magaalada Qardho. Serviceska bankiga uu bixiyo waxa u qidmayna saan sheegayba ganacsatada oo account kala nooc loo furayo oo xoolahooda ku kaydsanayo, qofkii mishaariga ahaa, qofkii shakhsiga ahaa, qofkii dumarka kudii account qaas oo lagu talagalay qof walba shaqadu haysto, ganacsigu ku jiro, wixiis uu ku kaydsanayo yaan u diyaarsan oo bankiga u diyaarinay. shirkadooyinka waaweyn, shirkadooyinka dhexe, ganacsiga hoose kudii waan serviceskooda iyo accountskooda kudii waan u haynaa hadduu alla yiraahdo. waxaan kaloo nigu diyaarinay bankiga uu noo suurtagelinaya dadka ganacsada especially inaan nigu xirno adduunka qaybihiisa kale. dadka ka soo iibsanayo badeecada banaanka ka soo iibsanayo inaad lacagtaada ku dirsan karto adigoo halkan Qardho joogto, toos aad ugu diri karto adduunka meel ay tahayba oo adigoo isticmaalaysa TT-ga meel ay tahay, hadday Dubai tahay, hadday China tahay, hadday Turkiga tahay, hadday Mareykanka tahay, meel alla meeshaad ka soo iibsanayso alaabtaada inaad toos ugu dirsan karto TT-ga adigoo isticmaalayso iyo bankiga nii suurtagelin doona insha Allah taala. marka waxaan rajaynayaa reer Qardho adigoo halkan joogtaan inuu ganacsigeena wax weyn iska bedeli doono oo aad TT-geena iyo kala wareega lacagta ku kala wareejinaysaan adduunka inaad halkan ka samaysan doontaan insha Allah taala idinkoona ka bixin magaaladeena. wuxuu kaloo bankiga nii soo bandhigayaa maalgelin maadaama dadka ganacsi uu ku jiro, qofka shakhsiyaadka naftiisa uu u baahan yahay horumarkiisa shakhsiga inuu samaysto. bankiga wuxuu nii hayaa adeegyo kala duwan oo qof walba kii ganacsiga, kii shakhsiga ahaa, ganacsiga hoose, ganacsiga dhexe, ganacsiga weynaa kudii aan ugu diyaarinay maalgelin kala duwan. kii u baahan badeeco loo iibiyo, kii u baahan baabuur loo iibiyo, kii u baahan dhismo loo sameeyo, kii u baahan dhul loo iibiyo, kudii bankiga way nigu diyaarsan yihiin. waxaan rajaynaynaa insha Allah taala inaad ka faa'iideysan doontaan. waxaan kaloo bankiga nii diyaariyay oo serviceska ama adeegyada aan bixina kamid ah oo kulluna aan ku soo darnay bankiga inaan sameynayna Mastercard oo kaarkiina aad ka qaadan doontaan baraajkiina Qardho wixii ka bilowday hadduu alla yiraahdo bari. waxaa sidoo kale halkaasi kelmado ka jeediyay isuduwaha wasaaradda haweenka gobolka Karkar iyo xubin kamid ah golaha deegaanka degmada Qardho. daahfurka banka Sombank waxa weeye waa fursad aad iyo aad qaali u ah, waa waxa loo baahnaa bulshaduna ay u baahnayd. aad baanuna ugu dadaalaynaa inaanu bankigan qayb qaadasho buuxda samayno haddaanu nahay haweenka ku nool Qardho, siiba gabdhaha ganacsatada ee ganacsiga fiican leh iyo kuwa yaryarba. mid inaan kula dardaarmo bankiga, midna aan ka codsado. midna aan kula dardaarmayo waxa weeye dabcan shaqooyinka uu qabanayo waxaa ka mid ah maalgelin. maalgelinta aad sameynaysan dadka u sameynaysan in u dheeraysan cimriga qofka lacagtiisa u bixinayo si uu u dareemin oo si tartiib ah uu u bixiyo lacagtiisa. qof kale u fududaanaysa bulshadana waxay ku dhiirinayaan inay qaataan oo si tartiib lacagtiisa kaga bixiyaan. sidoo kale waxaan rabnaa inaan ka codsano bankiga in ay faa'iido doon kaliya aysan noqone magaalada horumarkeeda qaybna kala qaataan. Cabdulqaadir Yuusuf Ciise oo ah maamulaha guud ee shirkadaha kala ah isbuunyada Tabaarak iyo Nashaad Motors kuna hadlayay afka ganacsatada reer Puntland ayaa isna halkaasi ka hadlay. hadda maanta boqolka qof ee aan meesha ku casubnay
ay berri isku daydo inay akoon ka furato waxay sahli doonaan in 10 qof oo ka mid ah markiiba ganacsi loo abuuro laakiin bangiga hadduu bandan deposit iyo ganacsi iyo isdhexgal iyo aan waxba aysan meeshaasi ka dhalan ma u malaynaya inay hore loo sii wadi karayo marka isku daya maskaxdiina ku haya inaa bangiga u baahan tihiin isagana uu idin baahan yahay marka waxaan kaloo aad iyo aad ugu soo dhaweynayaa fikradaha qaaliga ahaa oo bangiga soo bandhigay Cumar Cabdinuur oo ah gudoomiyaha guud ee bangiga Sombank ayaa ka hadlay muhiimadda uu leeyahay adeegga T+ iyo fursadaha laga heli karo bangiga Sombank. Aragtay isha loogu hayo adeegan T+ ayaa ka mid ah runtiina macluumaadkiisa iyo waxtarkiisa ma ahan mid hadal iyo lagu soo koobi karo xataa waxaan idin sheegayaa inuu ka da'weyn yahay bangiga laftigiisa yani taqriiban serviceka T+ku يعني شركة توكل بعد سمايسي هذا صوم بانكي ayaa lagu soo wareejiyay laakiin almost 10 sano ayuu maartay shaqeynayay qof alla qofkii qaatay ee isticmaalay taxadda waan idinku challenge gareynaya hal qof oo inta qaatay ka keenay complaint ama dacwo ama maxaan ku raahdaa servicekaas ima qancin qofka hadduu jiro haleela soo socodsiiya la isoo gudbiyo lama helayo balse annaga eed noo raacda waxaa la yidhaahdaa waradha haddaad hayseen alaabtan maxaad ula aamusnaydeen xaggee ku qarsoonaydeen gunti iyo gabagabadii waxaa xafladda soo xiray gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha Puntland mudane Maxamed Caydiid Jaamac bulshada Soomaaliyeed ee qurbaha jirta inay lacaga ay soo dirayaan oo dalka u soo dirayaan ay noqdaan mid ay soo marayeen oo bulshada u gudbinaysay runtii intii tawakkal jirtay waxaan ku ogeyn inay yihiin dad ammaano iyo hufnaan leh bulshadana qayb ka ahaa horumarkeeda ha noqoto inay ka qayb qaataan arrimaha bulshada sida abaari oo kale wadooyinka oo kale iyo qayb kasta oo bulshadu baahi ka qabto intaba waxaan runtii markii aan qarra joognay oo ay ka dhacday duufaantu shirkadii ugu horeeyay ka soo jawaabay taas marka waxay ku tusaysaa in mar kasta oo ay shirkaduhu xoogaystaan ay bulshaduna horumar fiican ka helayso oo ay dhibaatada jirta iyo duruufahooda kala qayb qaadan karaan haddana wuxuu xubsatay sanadii ugu dambeeyey in ay la saan qaado waayo mar kasta caalamku horumar ayuu sii samaynayaa oo waxaa moodaa xawaaladihii in laga sii baxayo ama awooddoodii ay sii yaraanayso marka inay qayb ka noqdeen oo fikradoodii koriyeen oo ay bangi fureen Sombank la dhaho oo hadda maraya runtii 13 xarumood inay Soomaaliya ku leeyihiin caawana qarro laga daahfurayo